तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरी रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहे तबला मुझसे जुदा तू ही मेरी शब है जुआ है तू ही दिन है मेरा اهلا فيكم اصحابتي القيمه بدنيد kaliya laab ku soo dhawaada marlaad marsaxad kanaalkeena MMB asxaabta qiimo badneed maanta waxaan jeclaysanay la wadaago fanaan aad u weynaa aan iraahdo waliba ku weynaa dalka Hindiya hadii kala tan fanaan iraahdo fanaan badan maskaxda ku soo dhaca marka fanaan dalka Hindiya ku weynaa maadaama dalashadiisa Hindi ay ahayd ayaa baxay oo tagay COVID-19 bishii markaan soo dhaafnay xaguu tagay xaguuse ka tagay wuxuu ka tagay dunida wuxuuna tagay ama uu qulqulay dhinaca loo badnaa haddaba intaanan u iman sida uu ku dhintay fanaankani aan in yar dib inoogu noqdo taariikh nololeedkiisii ninkan fanaanka ahaa waxa loogu yeeri jiray ama loo yaqaanay horta Mr. KK laakiin magaciisa dhabta waxa la yiraahdaa Krishna Kumar Kunal Krishna Kumar Kunal ama Mr. KK wuxuu ku dhashay oo kuna barbaaray waxbarashadiisina uu ku dhameystay isla goobtaas iyo isla dalkaas Hindiya ninkan odayga ah ayaa wuxuu ka tagay 2 caruura iyo xaaskiisa waxa la yiraahdaa Jyoti wuxuu guursaday 1990kii hadaba ninkan mihnadiisa faneed xagu ka bilaabay wuxuu ka bilaabay xayisiin kadibna waa la qaatay ilaa heer uu geliyay ciriiri ayaan oran karnaa inkastaanan haddana oran karin fanaaniintii waaweynadana garanaynin sida Kumar Sanu iyo Dadnaar ayaa aad macna loo barbar dhigay haddana waa fanaan meeshiisa mugiisa iyo meeqaamkiisa kulaha waliba khaasatan heesihiisa qof walba oo qalbi leh aad ay u dareen gelinayeen waa heeso macaan oo qiiro emotional ay u badnaayeen heesihiisu hadii aan heesihiisa qaar ku sheego ama aan qaar ku xasuusiyo wadayaabisa way dadka inta badan khaasatan ciyaal Hindiga wali ciyaal Hindiga hore isku jiraan imika wax kasta daqiiqad baa la ogaanay laakiin ciyaal Hindiga hore heesaha waxaan oran jirnay heesa Salman Khan baale heesa Shahrukh Khan baale heestii hirtay heesa Sunu Sheet heesa Akshay Kumar heesa Ajay Devgan heesa Bewdal heesa Sunuda baan oran jirnay ma garan laakiin mayn ogeyn in heesahan macaanka badan qiimaha badan jacaylku ku dhahan yahay alla jacayl weyn ah in ay ka dambeeyaan dad roog cadaaya oo juhdi iyo waqti geliyay dadkan aan codkooda baahayn ay jilayaan marka fanaankaas wuxuu ahaa fanaan aad heeso waliba nasiib wuxuu yeeshay filmo aad u guuleystay inay heesihiisu ku jiraan sida heesaha tadab iyo heesa bajna oo hasino me a gaya filimka heesihiisa qaar buu ku leeyahay filimkan kale Devdas oo ahaa film qaaliga oo yani film aad u guuleystay ahaa filimka laftigiisa heesa aad ugu macaan buu ku leeyahay waliba heesa aad u qarxay ayaa waxaan idhaahdaa heesta filimkan Gangster heesu ku leeyahay filimkan Kites Heretic heestan macaan ayana ah zindagi dopalki zindagi dopalki इंतजार कब तक हम करेंगे भला तुम ही प्यार कब तक ना करेंगे भला जिंदगी तो पल की heestaas filimkaas isagaa ku leh
وهستيسة معناها فيلم كله gangster إمران هاشمي هستن إسقى يا إسكاله तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरी रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला मुझसे जुदा तू ही मेरी शब है जुआ है तू ही दिन है मेरा heesa badan dee oo aan iminka hadda hal kusoo koobi karin oo aniga laftigeyga iminkada laftigeeda aan qaar badan sii ogaada inuu isagu leeyahay ayaa jirta isaga uma noqon waliba khaasatan heestan gangster ku jirta ninkan haddaba aan hadalka iyana idinku dheerayne wuxuu ahaa fanaan heesaha noocaasa leh oo heesa aad u macaan soo bandhiga marka dabcan taageerayaal badan waliba aan kugu dar heesiisa wuxuu ku qaaday luqado kala duwan heesahaas luqadaha uu ku qaaday waxa kamid ahaa marka hindi de heesta inuu hindi ku qaado marka laga yimaado wuxuu ku qaaday Malayam Marathi Bengali Assamese Odio maxay ahayd Gujarati maxay ahayd Telugu Tamil يعني ما soo koobi karo luqadu koobsaday ninkaasi marka dabcan taageerayaal badan buu yeelanaya hatta yani dadka madaxda ah ayaa aad u wateen kan hadaba aanu imaado horta aan ku horeeyo yani carruurtiisa inaan buka tagay xaaskiisa waxa la yiraahdaa Jyoti wuxuu guursaday 1999kii ninkan hadaba hadaan u imaado sida uu ku geeriyooday ama sida uu ku tagay wuxuu lahaa bandhig faneed cajiib buu lahaa wuxuu ku qabtay Calcutta isla Hindiya waxa ka soo qayb galay madax qiimo badan waxa ka soo qayb galay wixii taageerayaal markaa halka ka agdhowa oo dhan iyo kuwa diyaarado iyo flight soo goostayba halkaas ay isugu yimaadeen si ay habeenka ay waqti fiican ula qaataan hatta dadka waxa ku jiray ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya ana markii dambana geeridiisa aad iyo aad uga xumaaday oo de macna kadis ay ku noqotay waayo ninkan wuxuu ku dhintay isla goobtaas ayuu horta xanuun ku qabtay inkastoo horta looga shakisanaa inuu xanuunka wadna xanuunka uu leeyahay haddana de waqtiga lama filayn laakiin de qadar eebe ayaa meesha ka socotay isagoo heesihiisii hawlihiisii ku jira bandhig faneedkiisii oo dadkiisii maaweelinaya ayuu markii yiri yani wax baan dareemay kuleel baan dareemay xanuun baan dareemay hoteelka degdeg haleegeeyo meesheedii macnaa aan joogay nasiiman u baahanahay waatan sidan balolood video ma soo gelin karo waa YouTube-kiga waxyeelaysa laakiin yani markii la carreeyay waa kan kadib cabar markuu joogay hadana dhakhtarba degdeg loo waaba tagayba oo socday marka dadka waxa ku noqotay xoogaa yani waxay aad uga naxaan bay ku noqotay waayo qof iminka ku heesay iminka ku hortaagnaa iminka heesihiisa macaan aad dhagahaaga u raaricinaysa iyo qalbigaaga oo si degdeg oo kadisa uga baxay isla goobtii oo ku sugnaa wadnaxaysa waxa kugu reebaysaa dareen kadibna in kadib uu wadinta lagu yiraahdo wallahi waxay leedahay xanuunkeeda leedahay dadka dabcan taageerayaasha oo ah hadaba asxaabteeda qiimaha badnayd ninkan odayga Mr KK ama Krishna Kumar Kunal maanta dunida kuma noola laakiin wuxuu ka tagay aan ilaahde marka dadkiisa dalkiisa uu uga tagay yani heeso markaas xasuus gelin doona taageerayaashiisa ah ama dadkii jeclaa ninkan waxaan aad ugu xasuustaa xitaa heestan maxay ahayd heestan la yiraahdaa tadab heestii macaaneyd filimkii Salman Khan filimada noocaas heesiisa ku bixi jiray marka ninkan nin sahal ma ahayn marka loo eego dalka Hindiya inkastoo uu ka talaabay waxa soo luqada oo codkiisa ku soo gudbiyay
haddana geerida ama bixitaankaas waxay ku noqotay afkalaqaad ilaa ra-iisul wasaare ilaa madax ilaa iyo shicib waa la ooyey waa la baroortay marka asxaabteeda qiimaha badnayd halkaas ayuu inoogu soo eegyahay taariikh nololeedka Mr. Krishna Kumar Kunad idinkana waxaan idinka codsanayaa kaliya laab si qiimo leh kanaalka mar waxaan idhaahdaa asxaabteeda qiimaha badnayd asxaabteeda qiimo qadar sharafta karaba asidii gaarkayga mudnayd asxaabteeda mar walba dhiiri geli jirtay asxaabteeda mar walba like comment subscribe war idin mee war le ma wadayna aad baan idinku mahadcelinaya laakiin aan sidaas isu dhaan isfahano like subscribe iyo comment way qaade wax way sheegmayaan